السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقف فوتبول شو وإذا لما كلكم سودا وهذا. Fine. Why do you have to? What's wrong with you? Because I heard what I heard. السلام عليكم سودا وهذا كل كفته منكم بلوني لكن فيديو كان قال لنا كفته نيو واحد دوتونا معه مركار عضدك يو قرالة ما موينك أمبول على ذي نلاشر جرين وهذا لاشر جرين دونا كل يديكون رياكشن كينا يسدي وحيين ونلار كده دونا. waxaynu maanta ka wada hadli doonaa oo videogeenu ku saabsanaan doonaa ciyaalkeena Soomaaliyeed oo ah sababta koowaad ee aan YouTube-kan ugu talagalnay inaan u furno maadaama dadkeena Soomaaliyeed ama ciyaalkeenu aanay haysanin YouTube badan oo af Soomaaliga amba luqadda af Soomaaliga ku baxa insha Allah waxaan rajaynaynaa markaa inaan su'aasheeda koowaad noqoto ciyaalkeena Soomaalidu ee qurbaha jooga aan ku soo koobno North America maxaa looga waayay ilmo Soomaaliyeed oo scholarship ku hela sports oo la yiraahdo ilmahaasi scholarship uu ku helayo wuxuu ka ciyaarayaa wuxuu college-kaas ku biiray amba naadigaas academy-deedu ku jira meel fiican buu ka soo socdaa amba ilmahaasi dee teamka weyn baa uu ciyaarayaa ka ciyaaray division-ka koowaad ciyaalkeena Soomaaliyeed waxay moodaa inay aad uga dambeeyeen ciyaalada kale marka su'aasha taala meesha waxay tahay ciyaalkeena maxaa xagga dambe mariyay ma inagoo gafnay ase waalid ma ciyaalkeena oo aan diyaar u ahayn amba jidhkii lagaga qayb gelayay sportska aan lahayn waad moodaa inay lafoogu ka jilicsan lafa ciyaalada kale ma ciyaalkeena oo aan timekii gelinayn u baahnaa in la geliyo oo niyadu haynin mise ciyaalkeena kalar iyo waxaa lagu reebay diintooda islaamka coachkoogu maaha dad aad u xiiseynaya inay yaroo muslim amba inay yaroo midow ay meel soo marayaan marka su-aasha jawaabteeda kolley dad badan baan oo waxgarad aan la sheer garaynay jawaabahoogii amba waxyaabaha aragtidooda insha Allah waan la sheer garayn doonaa laakiin marka koowaad aragtidayada ayaan soo dhiiban doonaa waxa aad moodaa inay jiraan saddex siyaabood oo kala ah siyaabaha ciyaalkeenu aanay maanta darajo wanaagsan sportska uga gaarin waata koowaad waalidka oo aan time badan gelinin waa haddii ay wada joogaan oo aabihii hooyadiiba ilmihii la joogaan aan time badan gelinin ilmihii oo sidaynu ognahayba sportsku wuxuu u baahan yahay in maalmaha qaar la geeyo ilmaha garoonkii uu joogay ka fog ama meel ku ciyaaro meeshii ka fog in gym fog la geeyo in la yidhaahdo maanta statekan kalaa la tegayaa nacam waxyaabo badan in lacagtu badato ilmaha lacag badan la yidhaahdo sportskii waa in lagu bixiyaa uu qaadanayay ee lagu train garaynayay oo familiga awoodi waayaan amba ay u arkaan inay lacagtani tahay lacag khasaare ah oonay u baahnayn inay lacagtan ku isticmaalaan ilmahoogu inay sports ku barto maadaama ilmahoogu waxyaabo badan oo kale u qabanayso waa midda labaad ilmaheennu ma odhan karnaa iyagu diyaar uma aha amba inay geliyaan timeka loogu talagalay inay geliyaan sportska because wuxuu u baahan yahay sportska waqti badan inaad geliso adigoo talentkii leh ayaa haddana time badan oo jidhisid hadday tahay training hadday tahay orod hadday tahay oo ase Soomaaliya aad moodo inay nagu yar yihiin dadka u dhashay inay shaqo badan qabtaan ase sports ay yar tahay ilmaheennii ma odhan karnaa taas umay dhalanino waa wax jidhkeenna ku jira waata saddexaad ma odhan karnaa ilmaheennii waa la cunsuriyeeyay ilmaheennii kalar baa lagu reebay ilmaheennii diin baa lagu reebay ilmaheennii coachadka uma eegaan sida ay ciyaartooyga kale amba madowga ee gaalada ah amba caddaanka amba dadka kale loo eego oo ilmaheennii waa ilmo lagu cunsuriyeeynayo diintiisa iyo kalarkiisa taasoo ay weliba sii dheer tahay ase waalid inay nagu yar tahay inaynu coachka daba taagnaano oo aynu weydiino ilmaheennu sababta aanu ciyaarta u ciyaarayn amba sababta aanu trainingkan u qaadanayn amba sababtu ilmaheennu ugu hooseeyo ilmaha kale because ilmaha Soomaalida hadday aad daawato meelaha ay kubadda ku ciyaaraan waa aad bay ugu horeeyaan skills wise marka loo eego marka ase family ase waalid waxa laynooga baahan yahay aan idhaahde amba family oo dhan ba hadduu ilmuhu leeyahay walaalo ka waaweyn hadduu leeyahay abtiyaal adeero habaryaro eedooyin inaynu ilmaheena daba taagnaano
oo coachkana aynu daba taagnaano eegno ilmaheenna iyo coachka halkay kala marayaan ilmaheennana inaynu sportska ku dhiirigelino waxaan idinla sheergarayn doonaa qiso yar oo aan la wadaagay hooyo Soomaaliyeed oo magaalada Minnesota degan oo maasha Allah dhibaato kala soo kulantay ilmaheega oo ka ah captain basketball team high schoolka final yearkiisii waqtigii ilmaha laga dooranayaan bay imanayeen sportska eega ciyaartoyga fiican ay ilmaheedii waa la fariisay isagoo captain ka teamka sababta loo fariisay maxay tahay maamadaas ay nala sheergaraynaysaa amba walaal Soomaaliyeed oo inala sheergarayn doontaa haddii ilaahay dhibaatada soo martay insha Allah codkeeda idin dhegeysiin doonaa. I know, for instance, there's one kid that I know for sure, same age as my son. He was cut by the team his last year of senior, and it really hurt him a lot. Alhamdulillah, he did not do crazy things, but it affected him a lot, where he didn't even want to go college. He didn't even complete his first year of college. waxaanaynu maqlaynaa iminka dhagiina si fiican ugu furaa bal ilmaha final yearskiis laga jaray teamkii laga reebay bal ka warama waxaan maaha mid qoro 2 maaha 3 maaha 4 maaha imkuna maaha waxaan hadda dhacaya maaha wax inagu cusub wadankan haddaynu ugu yarnay at least one generation way noo joogaa oo inta meesha ku dhasheen ilmo kale ku sii dhalay marka ilmihiina yar ma u qalmaa in ilmaha inta final yearkiisii teamkii laga reebo oo deetana college-kii misgareeya because sportskii amba wuxuu jeclaa niyadda iyo hamiga ku hayay ayaa laga reebay miyaanay qaladkeena ahayn ilmahaas maanta hadduu drugs amba dhibaatooyin kale amba xumaan kale uu ku biiro u yidhaahdo wixii mustaqbalkaaga ahaaba waa lagaa jeediyo cid ku garab taagan ma jirto ilmaheenaas markaa maynaan inagu dayicin maynaan awood u lahayn ilmaheenaasi haddii taasi ku dhacdo inuu yeelan karo guddi community uu imaado yidhaahdo tan iyo tan baa igu dhacdee maxaa laygala qaban karaa maxama haddaynu isna idhaahno dadka oo dhan soo waraysta amba hooyooyinka amba aabooyinka oo dhan soo waraysto ilmayaashooda waxa ku dhacay kuwii hore iyo kuwii dambe iyo kuwa imikaba waxaan helaynaa sheekooyin ciiddaa ka badan oo ilmo Soomaaliyeed ay meel fiican ku gaari lahaayeen laakiin wax kasta maalin bay bilaabmaan ka shakhsi ahaan waxyaabahan u bilaabay YouTube-kan oon doonaya inaynu sheergarayno aynu ka wada hadalno ayaa waxay tahay waxyaabahan hooyooyinkan iyo aabooyinka ku dhacay inaynu soo ururino war ilmaheenna inaynu waraysano oo si aan boonkii ay taagnaayeen amba kuwii hore ay u galeen kuwan dambe aan ay ugu dhicin in ilmaheenna aynu horumarino intan aabba laga yaaba inay nasiib u yeesheen iminka videogeygan inay arkaan intan hooyo laga yaaba inay nasiib u yeelatay videogeygan inay arkaan sheergareeya war dadka la hadla isku daya inaynu arrinaynu iskaga nimaadno noqoto nala soo xidhiidha noo soo gudbiya sheekooyinkiina si walaalaha kale aanu la gudbino oonu la sheergarayno oonu uga wada hadalno waxaan anigay damqaya inuu idinkana idin damqaa muhiima reaction video laga soo sameeyo waxba ma sheegay haddaanay dadku reaction ka sameynayno wixii ku dhaqmay waxa kale oo iyagana qoraalkan kale amba codkan kale inoo soo duubtay walaal Soomaaliyeed iyaduna ilmaheeda amba talentka u leeyahay iyaduna aragtay dadkii la arkayna ay u sheegeen oo ku dadaalaysa amba diyaar u ah ilmaheeda inuu meel gaarsiiyo iyada iyo naftiisaba oo rabta ilmaheeda inay meel kasta oo uu wax ka baran karo sports inay geyso oo annagoo walaalo Soomaaliyeed oo u soo bandhignay wax oo leh su'aasha markaan weydiinay ay naga codsanayso inaan u soo helno meel fiican amba aan u sameeyno as Soomaali meel xataa lacagtooda ay la baxaan oo ilmahan wax lagu bari karo iyadana ila dhegeysta hadalkeega yara kooban insha Allah abo macaano anigu waxaan deganahay Salus Park iyo habkanis dhinacaan deganahay waxa kale oo abo rabaa inaan ku sheego alxamdulillah ashukri maanta hooyooyinkeena ma aragtay dib ma nahaasto waxa dib noo haysanin lacagti waa hana xitaa mar rabnaba inaa free ilmi wax aan cunugeyga markii la dhaha talent iyo maanta leeyahay oo bari la dhaha saakar haduu ii ciyaar in the future oo billionaire iga dhigayo I wanted inaan la daba galo wixii uu ku fiican yahay inaan baro wallahi abo ma badaheenba meel free waxa ilmihi inta meel aanoo furtiin oo wixii noo baraysiin oo hadhood ilmaha markii iskoolka aadaan oo saakarka hadaa dhigan halkaas ka soo barteen oo cunuga markii ma arkino oo meel furtiin magac leh ilmo yar yar maalin kasta arkaa ma aqaan oo baleegaraanyadan oo niman cadaan saakar ku baray laakiin I don't know meesha sidoo u shaqeeyo systemkooda abo systemkaas raadi
ilaahow cunuga $100 bishii naga qaatiin waan bixin karnaa lacag la'aan ma naaso hooy imka walaasheenan oo kale waxay diyaar u tahay ilmaheedii xataa lacag inay taalankiisii kusoo bandhigto si uu sii kordho si ilmaheedii heer uga gaaro waxay hooyadan amba walaasheenani aaminsanta ilmaheedu taalanka uu leeyahay inay noqon karto mid professional ku noqdo oo iyadana mustaqbalka uu wax ugu tari karo laakiin dhibaatada meesha ka jirtaa maxay tahay walaasheen ma garanayso ilmaheedii meel ay geyso ay ku soo ciyaarsiiso ma garanayso dad soomaaliyeed amba meel akademiyad furan oo la leeyahay waa akademiyada soomaaliba iskale ciyaalka training lagu siiya ciyaalka lagu horumariya ciyaalka waxa loogu sameeya waayo maanta hadday garanayso walaashani kamay fikirtaan ilmaheedu talo ku gaari doonaa walaashan iyadoo aaminsan inay hooyooyinka amba aabayaasha amba waalidku ay ilmahooga u huri karaan lacag oo u hayaan lacag oo u hayaan time haddii ay og yihiin meesha training lagu siinayo haddii og yihiin meel Soomaali isku xidhan ay jirto oo la leeyahay clubkaas waa clubkii Soomaalida ilmaha yare 5 jirka 6 jirka 7 jirka ba training loo bilaabaya because uu noqon ilmaha yare 5 jir 6 jir 7 jir wuxuu baahayay coach keligii la kulma wuxuu baahayay coach keligii wax u sheega inuu wax fahmo laakiin haddii waalidkii in badan aanay garanaynba meeshii wax laga heli lahaa amba chance baanay u haysan state amba gobolkii degan yihiin inay leeyihiin waxyaabo noocaas oo kala miyaanay mushkilad hayn maanta walaasheenan Minnesota inay la degan tahay Minnesota waa state ka agartay Soomaalida ugu badan meesha ay joogto Mareykan walaasheen inay maanta hadalka tiraahdo oo ay garan weydo meel ilmaheedii ay geyso maana ayaan darro inagu hayn inaga Soomaali ahaan ciyaartoydii hore ee fadhiistay amba coachka magaalada jooga miyaanay ayaan darro ku hayn inaanay flyers lahayn inaanay lahayn dad isku taga inaanay hayn dad plan leh oo ilmahan ka fikiraya mustaqbalkooda wartime in gelino community inta sameeyay coach oo sameeyno aan meel ilmeen ku ciyaaraan oo sameeyno in ilmeen horumarino inagu ba wax ka faa'iideeyna ilmeen kii ilmalana alxamdulillah kii kalena Allah u badbadan asiyo laakiin ilmaha in la wada dadaalo in isgarab istaagno ilmuhu ma hayna madan war hableena sports bay ciyaari karaan ma hay sports ku inay intana xijaabka dhigto amba ay qawanaato short soo gashato sports badana asturan baa jira qaar inagu aynu sameyn karnaa jirta marka caafimaadkeenu ku jira sportska in hableena iyo nimadeena kula dadaalo si meel fiican waxbarashadoodana uga gaaraan sportskooga wax uga gaaraan mustaqbalkana ilaahay baa kii ay wax ku heli doonaan marka walaalayaal waxaan jecelahay inaan isku nimaadno community ahaan emailkaygu waa ka hoosta soo dhigi doonaa emailka nagula soo xiriir insha Allah qof kasta fikradad hayso wixii aad doonayso talo iyo tusaale nala wadaagto wixii aad ku caawin karto ilmaheena wixii aad waalidka u soo jeedinayso insha Allah intaba waa diyaar baan u nahay anaguna waalidka kale waan u soo bandhigaynaa comment-ka waad ka soo bixin kartaa isaga laftigiisa waad nagula wadaagi kartaa waaga football show oo idin leh is aragtida booxiisa